بلنتنوا بقول كيف بقول بقي وقليل نكبر التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دمانتين به كنا سود وادا 10 كيني أما chapter كيني عتب كيني تضباط كصابسنا performance of contract gudashada waajibaadka heshiiska iyo sidoo kale discharge of contract ama dhamaadka contract sidee ku dhamaada goormuu dhamaanaya waxyaabaha contract-ga dhameeya maxaa kamid ah ayaynu chapter kan ku qaadan doonaa balse maanta waxaan qaadanaynaa 10 keena koobaad oo la xiriira performance of contract gudashada waajibaadka heshiiska. Haddaba waxaynu eegi doonaa hadda chapter 7 performance of contract and discharge of contract. waxaanu ka horeyn doonaa qaybta hore ah performance of contract. Performance of contract ku haddaba muxuu yahay? Performance of contract waxa weeyaan inuu qofku guto waajibaadka ka saaran heshiiska. waxaynu hore u soo qaadanay in marka labada dhinac ay heshiis gelayaan dhinac walbaba uu waajib fuulayo. tusaale ahaan qofka wax iibiya waxa laga doonayaa baynu niri inuu keeno alaabtii uu iibinayay iyadoo oo markaa bad qabta oo fayo isla mar ahaantaasina sidoo kale in uu keeno haddii qofkii wax iibsanayay inuu isna maxay bixiyo lacagtii. haddaba qofku marka uu heshiis galo ogolaanshaha uu ogolaado waxaanu chapteradii hore ku soo qaadanay qofku marka uu heshiis gelayo ee uu wax ogolaado macnaheedu in ay tahay in marka uu wax ogolaaday uu fuulay waajibkaasoo ay tahay in uu guto. haddaba iminka waxaynu eegaynaa haddaba gudashada waajibaadkaasi ka dhalanaya heshiiska dhinacyadu ay galaan aan baleegna. haddaba wuxuu markaa performance of contract means gudashada heshiisku means macnaheedu waxa weeyaan one's own obligation as agreed means fulfilling one's own obligation as agreed in qof kasta guto waajibaadkii uu ballan qaaday ama lagu heshiiyey. if the obligation is to do haddaba haddii yahay obligation kaasi mid wax la qabanayo to do maxay wuxuu la xidhiidhaa service buu la xidhiidhaa doing what was provided in the contract exactly in the same way as provided. haddaba haddii yahay heshiisku mid wax la qabanayo waxaa lagaa doonayaa in aad qabato wixii heshiiska lagu galay. tusaale ahaan hadduu ahaa heshiiskaasi inta badan to do services waxa weeyaan to do contracts waxa weeyaan waa service contract bay la xidhiidhaan oo waa adeeg la qabanayo iyo hawl la qabanayo. haddaba waxaan eegi doonaa markaa to do service-ka to do contract-ka maxaa la iskaga baahan yahay balan eegno. wuxuu leeyahay markaa doing what was provided in the contract exactly in the same way as provided waa inaad u qabato hawshaasi sidii lagu heshiiyey inaad u qabato. if obligation haddaba haddii obligationku yahay not to do inaanad qabanin forbidding from doing what's forbidden by the contract. haddaba obligationku hadduu yahay obligation not to do waxaynu hore usoo dhiganay marmarka qaar waxyaabo uu kuu baneeyey sharcigu inaad heshiis ku gasho inaad adigu deyso. tusaale ahaan oo kale haddii adigu aad macmacaanle ku haysato suuqa ama aad meherad suuqa ku leedahay meheradaaduna ay tahay ta ugu camiran deedna agtaada uu qof doono inuu meherad ka furto oo aad qofkii kula heshiiso in aanu meheradaa furan maxaad heshiiska aad gashay waa maxay waa obligation not to do service uu xaq u lahaa iyo ganacsi uu lahaa inuu samaysto ayaad kula heshiisay in aanu gelin adigoo taa bedelkeeda ku bedelanaya in aad lacag siisay isla mar ahaantaasina aad ka joojisay. that is not to do maxay contract waa heshiiska ah inaanu qofku markaa waxaa samaynin kamana dhalanayo waxaasi maaha wax sharcigu u diiday laakiin wuxuu noqonayaa wax loo diiday marka contract iyo heshiiska idinku aad wada gashaan uu dhigaya sidaa ama contract ama heshiiskaasi uu u diidayo. waaye balan eegno waxa kaloo noqon karaa contractgu to give buu noqon karaa. waa maxay to give waa maxay waa delivering something waa commoditieski waa alaabihii iyo waxyaabihii kale ee maxay productionska la xidhiidhay ama productska la xidhiidhay. midna waxaynu nidhi waa service midna waa maxay waa product. to give macnaheedu waxa weeye markaa kaa la keenayo ee la qaadayo waxa weeye waa delivery ka kalena waa maxay waa to do oo waa maxay waa service. to give na waa maxay waa delivery oo waa product. haddaba performance-ka contract labada mid uu noqonaya ama inaad adeegii qabato ama inaad ilaahay baytiisa tahay hawshii kale markaa ee laga doonayay in aad productski keento. waxa kale oo soo sheegnay service-kan laba u kala qaadno to do iyo not to do. haddaba waxaynu markaa eegaynaa
obligation ku hadaba hadii uu yahay maxay ahayd obligation to give or to deliver waxa laga doonaya inaad keento ama aad bixiso wixii lagu heshiiyey oo sidiisiya waaye wuxuu delivering the thing with its accessories on the agreed date and place is called performance of contract. Hadda performance of contract wuxuu noqon karaa in aad qabato wixii lagu heshiiyey in aad maxay ahaydey waa markuu service-kiya iyo to deliver in aad keento markaa wixii productiski oo markaa productiski maxaa loo baahan yahay with its accessories inay la socdaan waxyaabihii markaa lagama maarmaanka u ah tusaale ahaan oo kale haddii aad iibinayso mobile waxa muhiim ah oo accessorieskiisa ka mid ah chargerkii maxay ahaydey mobileka iyo bayterigiisa inkastoo imika mobiladan dambe casriga ah bayteriga iyo ay isku samaysan yihiin mobileko haddii laptop aad iibinayso oo kale isna waxaa lagaaga baahan yahay chargerkiisii iyo laptopkii gaari haddaad iibinayso taayirkii markaa la bedelayey shaagbaanaha kii lagu dalacay jaagii lagu dalacay iyo kii boolasha lagaga furfurayay kuwaasaa la dhahdaa accessories haddaba in kuwaa xilligii loogu talagalay aad keento iyo goobtii loogu talagalay ama adeegaa ku qabatid sidii waqtigii lagu heshiiyey iyo goobtii lagu heshiiyey ayaa la dhahdaa performance of contract haddaba who performs a contract yaa heshiiska gelaya the contract heshiiska can be performed waxaa qaban kara by the debtor qofkii markaa laga doonayey ee isagu maxay ahaydey qabanayey by his agent wakiilkiisa or ama by a person qofka authorized oo u ogolaatay by a court of law or ama person is authorized by the law waxaanu nidhi waxa qabanaya qofkii si shakhsiya u qabanaya ama waxa qaban kara qofka wakiilkiisii ama qof ay maxkamadi u ogolaatay haddaba qofka maxkamadi u ogolaatay uu noqon karaa waynagii hore usoo sheegnay markaynu bilowgii heshiiska dhiganaynay ama contractyada dhiganaynay in heshiisyada qaar aanay caruurtoo kale dadka waalan oo kale iyagoo heshiis geli karin kuwaasoo kale waxaanu nidhi maxkamadda waxay u qabataa cid iyadu markaa ilaahay baytiisa tahaye waxaan maxay ahayd markaa wakiil ka noqota dadkaasoo inta badan u badan qofka qoyskiisa iyo qaraabadiisa markaasoo kale maxkamadda u qabanaysa ama sharciga markaa faraya in loo qabto qofku mar hadduu yahay qof aan hantidiisa isagu maamuli karin in loo maamulo sharciga qaba waayahay the law sharcigu never mention about performance of a contract by a third part not authorized by a debtor or court or the law haddaba sharcigu halkan wuxuu meesha ka saaraya oo gaashaanka u daruuraya ilaahay baytiisa tahe inay performance kaa samayso cid aan ahayn ciddii loo wakiishay debtarka ama ciduu u wakiishay ama maxkamadi cid ay u fartay ama sharcigu cid kale oo markaa uu u ogolaaday moreover waxa intaa dheer the kiisku amaba maxay ahaday arrintu where personal performance become necessary is when the creditor proves that personal performance is essential to him haddaba goormaynu odhan karnaa personal performanceku waa muhiim moreover waxa intaa dheer buu yidhi the case heshiiska where personal performance meesha gudashada waajibaadku ay si shakhsiya muhiim u tahay becomes necessary ay lagama maarmaan noqoto is waa when marka the creditor proves that personal performance is essential to him inta badan mararka caynkaasoo kale ah ama creditorku uu codsado in si personal loo qabto waa marka inta badan uu yahay mid to do ah ama mid la xiriira markaa ilaahay baytiisa tahaye service balan eegno the creditor can be able to prove such only wuxuun baana muhiim ay tahay oo lagama maarmaan ay noqonaysaa in uu markaa creditorku dalbado in personal performanceku muhiim yahay when the obligation marka waajibaadku is uu yahay the obligation to do heshii maxay ahayd kii serviceka la xiriiray of a professional nature or art hawshaasi ay tahay hawl xirfad ahaan markaa loogu baahan yahay inta badan serviceka ama maxay ahayd hadduu yahay heshiisku markaa product hadduu yahay deliveryga qof baa lagu soo saari karaa gaari baa lagu soo diri karaa mar walba adiga waxa muhiim ku ah in alaabtu ku soo gaadho iyadoo bad qabta laakiin haddii contract uu yahay markaa mid isagoo la xiriiray ilaahay baytiisa tahaye service la qabanayo ma wakiilan karo debtorku isagu waajibaadkii saarnaa cid kale uma daadejin karo isla mar ahaantaasina cid kale uma diri karo oo aanu creditorku raalli ka ahayn ama isagu aanu ku qanacsanayn bal aanu eegno tusaalayaashan soo socda heshiis imika tusaalahan oo kale haddaynu u baahano inaan lawyer hire garaysano balan eegno
Example tusaale ahaan, a lawyer or a doctor cannot authorize a duty which he agreed to do. Haddaba tusaalahan ugu horeeya wuxuu soo qaatay qareen ama dhakhtar, ama let us say qof kale oo isaguna xirfadyahana. muhiimaddu waxa weeyaan lawyerka haddaad u baahan tahay qareen khabiir ah oo aqoon badan u leh difaacidda ku difaaci karaya, aad 80% ku qanacsan tahay xirfadiisa lawyernimo. haddii adigoo qofka heshiisa la geshid, isagu ma odhan karo hebel baan soo diray oo waan maqanahay, adiga ma ogolaansho la'aantaada. marka sidoo kale dhakhtarka u shaqeeya cisbitaal ma odhan karo maanta anigu duty-gayga ama hawshaydii waan ka maqanahay, deedna hebel baa sii qabanaya. hadduu doonayo taa inuu yidhaahdo, waa inuu cisbitaalka maamulkiisa la hadlo, deedna u sheego inaanu maanta iman karin, si aanay hawshii u baaqanina uu cid kale wakiilan karo. tusaale ahaan oo kale, macalinka jaamacadda dhigaya ma maqnaan karo oo kooraskiisa ama maadada uu dhigayo macalin kale uma diri karo ogaansho la'aanta maamulka, waayo isagu ma laha authority-ga markaa uu cid kale u diri karayo. waayo qofka waxa lagu doortay isaga xirfadiisa, aqoontiisa iyo garashadiisa lagu xushay. marka maadaama qofkii sidaa loo xushay, adeegii uu qabanayna uu professional u yahay oo expert ahaan lagu xushay, cid kale uma wakiilan karo oo aan ahayn markaa ciddii maxay ahayd maamulku ka raali yahay. haddii laakiin maamulku aad ogeysiiso tira maanta waan maqnaanayaa ama hawshaas ay ila soo daristay, saa darteed waxaan codsanayaa in hebel ama hebel ay hawsha sii qabato, den markaa serviceka hadduu qofkaasi kaa ogolaado is acceptable. moreover waxaa intaa dheer musicians, nimanka musicianska ah ama muusiga tumo oo kale, haddii aad u baahan tahay inay music kuu tumaan, ama aad doonaysid in ama iyagu caansan musicianada tuma, ma furinla, ma cadceedba, ma cabdiraxiin carabba, kii adigu aad rabto markaa inuu kuu tumo, haddaad mid ka mida doonayso oo lagu dhaha hebel baa tumi doona, maaha wax la aqbali karayo. saasi lamid haddii xaflad aad aroos aad leedahay oo aad u yeedhato fanaan hebel, let's say fanaaninta ugu caansan mid ka mid ah, deedna aad hebel u yeedhato, hebel aad doonayso xafladaada inuu ka heeso, kadibna fanaan kale laguu soo diro oo lagu dhaha hebel maanta hawl baa ku timide, dee hebel kalaa sii matelaya ama hebel kalaa qabanaya hawsha. is it acceptable? ma tahay wax la aqbali karayo? maya, dee hebel kale wuu diyaar buu ahaa isaguba, oo waad dooran karaysay, oo waad xulan karaysay, oo waad odhan karaysay hebel ha ii noqdo. laakiin maadaama aanu isagii jirin, markaa there is no reason, markaa ma jirto wax sabab ah oo aad u xulan karto qofkaasi oo kale, ama xaq waxaad u leedahay inaad diido. qofkii soo diray adiga ogaansho la'aantaadana wuxuu sameeyey breach of contract. balan eegno painters, qolooyinka markaa iyagu wax buufiya ama paintska ah ama artska sameeya, haddii aad u yeedhato, ama let us say biot gabaya, haddaad gabay u baahan tahay, oo let us say aad tidaahdid abwaanadan dambe kabaa ugu gabayo wanaagsan ama ugu suugaan fiican, waxay ku xidhan tahay kaad adigu doorato. waxaa laga yaabaa qofba inuu qof isagu jecel yahay, oo anigu hebel baan suugaantiisa jecelahay, anigu hebel kalaan jecelahay. qaarina aanay kuwa yaryar dhalinyaradaaba jecleen, qaarkood inay jecel yihiin kuwa kale ee waaweyn, ama qolooyinkii lodadkii hore ay jecel yihiin, qolana inay lodadkan dambe jecel yihiin. waxay ku xidhan tahay adigu keebaa doonaysaa in aad xulatid markaa, ama suugaantaa uu kuu sameeyo ama gabaygaa uu kuu tiriyo. adigoo abwaan hebel abwaan e doortay, hadduu abwaan b uu ku yimaado lagu soo diro, maaha wax la aqbali karayo. performanceku markaasoo kale waa maxay? waa essential buu yahay markaa qofkii creditorka ahaa, waana provision markaa looga baahan yahay ciddii la dalbaday. taasina markaa ma delegate garayn karto, cid kale uma delegate garayn karto. balan eegno, waxaa ka mid a qolooyinka jelayaasha yaa ugu caansan. marka somaliland la joogo, jelayaasha qolooyinkan dancingka sameeya, dhammaan kuwaasoo dhani qofna uma wakiilan karo hawshiisa qof kale inuu u qabto, marka se adeegu uu yahay service ama to do maxay ahaydey contract uu yahay ama service contract uu yahay. performanceku wuxuu essential u yahay creditorka, waana provision waxaan qofka lagu doortay ee lagu xushay. balan eegna haddaba example tusaale ahaan,
if a certain construction company employees engineer Ahmed as a laborer haddaba haddii shirkad dhismaha ee Ahmed ay u qaadato in uu noqdo ninkii markaa maxay ahayd guriga u dhisayay he cannot trace his son or brother to carry out his labor work walaalkii ama aabihii uma diri karo and the company can refuse to accept Ahmed's son or brother and dismiss Ahmed from the work haddaba shirkadani haddii ay Ahmed u xulatay inuu yahay khabiir architecture ah ama civil engineer ah oo dhismaha ku takhasusay oo isagii laga rabo hawshii inuu qabto isagu ma oran karo anigu ma qabanayo hawsha intuu isagu heshiiska galo aqbalo waliba ma oran karo markii gudashada ay gaadhay walaalkay baa qabanaya ama dhameystiraya ama inankiisa ma soo diri karayo waxa muhiim ah baynu niri marka service-ka la qabanayo in qofku si personal ah isagu u qabto haddaba qofku hadduu taas sameeyo wuxuu sameeyay breach of contract macnaheedu waxa wixii lagu heshiiyey ayuu ka baxay hadduu doonayo taa inuu sameeyo ama inuu cid kale wakiisho ama inuu cid kale soo diro waxa waajib ah inuu la tashado isla marhaantaas inuu ogeysiiyo ciddii markaa maxay ahayd uu heshiiska la galay ee mas'uulka ka ahayd what to perform maxaa la qabanaya it is rule of law that performance must exactly be with the same the contract waxa la qabanaya waa inuu yahay wixii heshiiska lagu galay tusaale ahaan wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn inta badan markaad aragtid mid wad qof laga dad suuqa u baxdood bacadlayaasha meelaha wax ka iibsanayso oo tiraado waxaan u baahanahay shard let us say maxay aan idhaahno midabada isku yara dhadhow la isku khaldi karo maxaa kamid ah silfarka aynu idhaahno ama sibiriga midabka ah hadda tira ka shan doon waxa laga yaabaa mid aan ki ahayn aad rabtay laftiisa oo ka duwan inuu kugu qasbo kugu socodsiyo yiraahdo waa kan kalarku ama midabka doonayso waa midabkan war midabkan maaha midabkan doonay waa midabka ama waa nooca caynkaas ah haddaba haddii midabka adooratid midab aan ahayn uu ku siiyo ama uu doono inuu kugu qasbo midab aan midabka ahayn waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ku celiso waxa uu laga doonayaa wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey haddaad ku tiraahdo tusaale ahaan oo kale waxaan u baahanahay daqiiq nooca maxay ahayd number 1 ka ah oo deedna number 2 ga uu ku keeno wuxuu ka baxay wixii lagu heshiiyey marka bal hadba aan eegno what to perform waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey in sideeda loo guto a contract heshiiska must be carried out strictly with the terms of the agreement of contracting parties waa in loo guto si adag dhammaanba shuruudaha heshiiska lagu galay oo dhinacyada heshiiska ku galay ay wada qorteen failure haddaba ku guuldareysashada to comply with the terms of the agreement amount is non-performance of contract haddaba shuruudii iyo wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn haddii aad la timaado waqtigii lagu heshiiyey haddaad kadib dhacdo goobtii goobaan ahayn haddaad keento wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn haddaad keento taa macnaheedu waxaad samaysay non-performance of contract heshiiskii sidiisii umaad gudanin waajibaadkii kaa saarnaa heshiiska for instance tusaale ahaan when the parties marka dhinacyadu are agreed upon for the payment of money the performance requires the exact amount of money haddaba dhinacyadu haddii ay ku heshiiyeen oo heshiiska ay ka mid tahay inuu dhinacii kale lacag bixiyo heshiiskaasi wuxuunbuu ku fulayaa xaddiga dhabta ah ee lacageed ee lagu heshiiyey in sideeda loo bixiyo likewise sidaa la mid ah when the contract marka heshiisku requires uu u baahan yahay a delivery of Toshiba laptop Core i5 aynu nidhaahnabe haddii aad ku heshiiseen in lagu keeno computer markaa Toshiba laptop Core i5 yahay noociisu in this case-kan it requires waxay u baahan tahay the delivery keenitaanka of the exact laptopka laftiisa must be delivered waa in lagu keeno had Core i5 dalbato waa inaan dual core lagu keenin waa inaan Core i2 lagu waa inaan Core i3 lagu keenin waa inaan Core i7 lagu keenin hadduu midabku madow ahaa waa inaan silver lagu keenin ama cadaan waa inaan lagu keenin wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey waa in lagu keeno wax ka bedelaada ama ha yaraato ama ha badnaato waxa loo tixgelinayaa inay tahay non-performance of contract inuu dhinacaasi aanu gudanin heshiiskii saarnaa ama waajibkii heshiiska
For example, tusaale buu if it is delivered haddaba haddii lagu keeno the same Toshiba laptopka laftiisii but laakiin different model oo nooc ahaan ka duwan lada si aynu nidhaahno dual core inuu yahay dual core ba halkii laga rabay core i5 while the agreement was core i5. In this case, the creditor has the right to accept or to reject the performance of the contractual agreement obligation. wuxuu xaq u leeyahay markaa qofkaasi in uu diido iyo in uu aqbalo labadaba. haddaba when performance shall be made, goorma ayaa performance-ka la samaynaya, goorma ayaa la perform garaynayaa contractga. waxaa la perform garaynayaa waktiga lagu heshiiyo. haddaba ka waran haddii waktiga la iloobo, waynu eegi doonaa iyadana. Performance of contract, the rule is qodobada regarding to the time of performance of contract can be classified into two. labaa laga eegaya where the time of performance has been specified in the contract. halka lagu xadiday ama lagu sheegay heshiiska xilliga markaa contractga la gelayo iyo meel aan laguba sheegin isla mar ahaantaasina laguba soo hadal qaadin xilliga hadday dhinacyadii iloobaan maxaa laga yeelaya. waayo bini aadan baynu nahay, insaan baynu nahay, waxbaynu ilownaa. in wax la iloobo waxay ka mid tahay iyada lafteedu nimcooyinka ilaahay ina siiyo. bal waxaad qiimaysaa adigoo wixii kugu dhacay ilaa yaraantaada ilaa maanta maskaxda ku haya oo xasuusan sideed u noolaan lahayd. baad noolaateenba dee kama baad noolaateenba werwer iyo xusuusta iyo shayga kugu soo noqo. marka ilooshaha laftiisu waxay ka mid tahay nimcooyinka ilaahay ina siiyey. haddaba when the time of performance, haddaba haddii dhinacyadu ay iloobaan time of performance-kii ama goobtii waktigii performance-ka la sameynayay maxaa la yeelaya. hadday dhinacyadu iloobaan waktigii performance-ka la sameynayay maxaa la yeelaya waynu eegi doonaa. ta koowaad waa markaa meesha la isla xadiday ama la isla qaatay xilliga performance-ka la sameynayo. where the time of performance has been specified in the contract. meesha haddaba lagu qaatay ama la isla qaatay xilliga la gudanayo heshiiska ama la keenayo alaabta ama adeega la qabanayo, isla xilligaasi ayaa lagaa doonaya ilaahay bay tiisa tahay inaad adeegaasi qabato ama hawshaasi aad siday ahayd u keento. aan bal eegno tusaalahan. example, ciise ninka la promises wuxuu ballan qaaday to deliver inuu keeno mobilo to cawaale, ninka cawaale la yidhaha on May 2nd 2020 bisha shanaad labadeeda sanada 2020 oo maalmo yar baba ka hadhayba. Ciise has to perform his contractual obligation on the fixed date. ciise waa inuu ku keeno laptopkiisa aan idhaahdo mobiladiisa waktiga lagu heshiiyey. waktiga lagu heshiiyo maxay? waa bisha shanaad labadeeda 2020. haddaba hadduu keeno bisha shanaad saddexdeeda wuxuu sameeyey inuu heshiiskii ka baxay. hadduu mobiladii tiradeedii keeni waayo, wuxuu tiradii wax ka dhimanaadaan, wuxuu jebiyey heshiiskii. aan u soo noqonataynu uga gol leenahay oo ah waktiga lagu heshiiyey. marka waktiga laga doonayo cawaale inuu keeno waa goorma? waa waktiga lagu heshiiyey oo ah labada bisha shanaad 2020. why? where the time of performance has not been agreed. haddaba haddii ka waran aan laguba heshiinba xilliga waktiga ay dhacdo inaan laguba heshiinin xilligii la perform garaynayay. when this happens, haddaba tani waxay dhacdaa, tani inta badan way dhacdaa, waxaana dhacdaa when the parties marka dhinacyadu did not fix the time, aanay wakti u xadidin for the performance waktigii la keenaya ama gudashada heshiiska, bad laakiin agreed ay isku raacaan to perform inay gutaan their obligation is waajibaadkooda heshiiska. the performance then must be made within reasonable time. haddaba haddii la ilaawo ama dadkii ay dhinacyadii heshiiska gelaya ay iloobaan, ilaan bini aadan baynu nasaan soo sheegnay waa la iloobi karayaaye, maxaa la yeelaya? marka waxaa la yeelayaa sidii kale heshiiska waa lagu heshiiyey, qiimihii waa la kala qaatay, cadadkii lacagad waa lagu heshiiyey, wax walba waa la isku waafaqay. laakiin maxaa la iloobay? goortii la keenayey ayaa labadii dhinacba way iloobeen. marka maxaa laga yeelaya? marka ma xilligaan doonan anigu u geenaya, ma xilligaa doontaad geenaysaa, maxaad yeelaysaa? waxaa laga yaabaa dad fara badan inay leeyihiin dee maxaa xilligaan doonan geen karaa? mar haddaan waktiba la ii qabanino baalka wakti aanu ku xidhnayn, xaq waxaan leenahay xilligaan doono
aan geeyo ila kuwii waqtiga lahaa waxaan dad waqtigii kadib dhacdo macnaheedu waxa weeye inaad samaysay breach of contract ama heshiiskii aad ka baxday ama inaanad perform garayn waajibaadkii heshiiska ka dhalanayay haddaba si taa aynu uga badbaadno maxaa la yeelayaa marka ma bil kadib baad u geynaysaa ma 6 cisho kadib baad u geynaysaa ma sanad kadib baad geynaysaa goormaad perform garaynaysaa waxaad perform garaynaysaa waxay ku xidhan tahay waxa la yiraahdaa reasonable time waqti macquul ah haddaba waqti macquul ahi muxuu noqonayaa waqtiga macquulka ahi muxuu noqonayaa su'aashu waxa weeyaan waqtiga macquulkii muxuu noqonayaa waqtiga macquulka waxaynu ka eegaynaa ama aynu ka saxaynaa waqtiga macquulka ah waqtiga macquulka waxaynu ka eegaynaa ama ka saxaynaa subject matter of the contract muxuu leeyahay markaa what is reasonable time will be based on the subject matter of the contract waxa lagu heshiiyey ayay ku xidhan tahay waxa markaa ilaahay bitiisa tahay waqtiga la geynayo haddii waqtigii la iloobay tusaale ahaan haddii guri la dhisay uu yahay waxa laga yaabaa bil inuu dul qaadan karo waxa laga yaabaa bil waxa laga yaabaa inuu samri karayo waxa laga muddo caynkaas week inuu samri karayo gaariyo kala 2-3 cisho inay qaadan karto ka waran haddaba haddii khudrad ay tahay ka waran haddii muus uu yahay ama cambe uu yahay ama xabuub ay tahay iyada reasonable time keeda iyo reasonable time ka dhismuhu isku mid ba maaha isku mid maaha waayo waynu garan karnaa khudradda hore oo bislaanaysaa way xumaanaysaa laakiin dhismuhu ma noqonayo ilaahay bitiisate hay bal hadaba aan eegno markaa where the performance shall be made hadaba performance ka xagee baa lagu sameynaya the question su'aasha of a place of performance goobta performance ku it is common waa mid caana that the parties in dhinacyadu consent ay isla waafaqaan into the place goobta of a performance la keenayo heshiiska ama lagu gudanayo of their contractual obligation ee markaa la xidhiidho waajibaadkooda heshiiska in this case can performance must occur the agreed place in the contract waa inuu ka dhaco halkii lagu heshiiyey ladasi haddii qofku yahay qof ganacsada waxay noqonaysaa inta badan goobta maxayda la geenayaa halka uu ka dalbado ama xafiiskiisa shaqada haddaba haddii aan lagu heshiinin iyada lafteeda haddii la iloobo goobtii la keenayay iyadana maxaa la yeelayaa iyadana waxaad geynaysaa goobtii markaa qofku uu lahaa ayaad ugu geynaysaa ee shaqadiisa balan eegna waa yihiin su'aashaasi la xidhiidha iyadana halka la keenayo waxay ku xidhan tahay halka lagu heshiiyey tusaale ahaan buu yidhi nuur ninka la dhaha ovaries to deliver certain goods to Carraale wuxuu doonaya inuu alaabo u geeyo ninka la dhaha Carraale in his business place goobtiisa ganacsiga in Hargeysa ku taala on 2nd May 2019 bisha shanaad labadeeda sanada 2019 within the usual business hour haddaba weliba uu ugu geeyo saacadaha caadiga ah ee shaqada saacadaha caadiga ah ee shaqadu waa noocma ama saacadaha shaqada ee caadiga ahi waa maxay saacadaha shaqada ee caadiga oo isla dhaqaanaa waa 8 saacadood sida uu dhigayo xeerka shaqaalaha rayidka ah oo markaa maxay ahayd waa 8 saacadood 8 saacadood haddaad full time shaqeyso waa 7 ilaa 12 deedna 4 ilaa iyo markaa ilaa maxay ahayd 6 noqota laga yaabo ama 3 ilaa iyo 6 waxay ku xiran tahay kolba sida uu set gareysto ama uu u dejiyo ilaahay bitiisa tahay qofka markaa ganacsigaasi maamulaya Carraale in such case the performance is valid haddaba performance kaasi wuxuu markaa sax ku noqonaya only where Noor has performed his contractual obligation in a manner prescribed to the terms of their agreement haddaba haddii uu u guto Noor maxay ahayd sidii loogu heshiiyey ee contract ku qornayd si waafaqsan markuu Noor guto ayay hawshaasi markaa ku saxsanaanaysaa inta waxay nooga eeg casharkeennii koobaad oo la xiriiray gudashada waajibaadka ka dhasha heshiiska intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa waxaynu u gudbi doonaa markaa casharkeena labaad oo isna ka hadlaya markaa haddii ilaahay dhaahdo breach of contract ama aan idhaahdo discharge of contract dhamaadka contract sidee buu ku dhamaadaa ama goormin odhanaa contractgaasi wuu dhamaaday waa inoo iyo xiisada dambe intaynu xiisad la mid ku kulmi doono aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa ballanteenu waa